waxaa jira inamo badan oo suul sita inamo badan oo kaamirada sita inamo badan oo dhowr qof ay ku xiran yihiin oo isku haystay inay yihiin intellectuals iyo wariye iyo falanqeeyo siyaasadeed waxaan arkay qaar badan oo ugu qoran tahay Facebook political analyst international journalist freelance ay ku qorqorneed baan arkay waxay ka wada sameeyeen inay soo amaahdaan erayo ama halku dhigyo aanay fahansanin oo qabanayn ama description ka bixin karayeen waxa ay ka hadlayaan mid baa wuxuu soo qoray dawladda Itoobiya dawladda Soomaaliya Djibouti iyo Itoobiya deganaashahoodu wuxuu ku xiran yahay deganaashaha Somaliland adduunka qof si tabaruc wax ku siinay ma jirto dawladda si tabaruc wax ku siinaysa ma jirtee dana ka dhaxeeya 1994 danta Djibouti ka dhaxaysay in reer Somaliland xadka u furto maxay 1997 inay Djibouti caawimaad inta la eegsiiso Somaliland oo dalkii dib u dhiskiisii laga qayb galo kaalin wax laga qaato waxa naga soo galay anaga maxay ahayd ugaaska ciiso inuu raahdo isaaqa dagaalka halala galo anaga danta naga soo galaysay maxay ahayd ilaa waxa leedahay inter wax walba waxaad ku soo koobtay Soomaha danaysi imkada maantada la joogo in Djibouti Somaliland ay u dhuun daloosho oo wax kasta u baahan tahay ka caawiso iyadoo haddana arrimaha Soomaaliya faragelin aan ku hayn Djibouti maxaa ka soo gala waxaad sheegtaa danta Somaliland ay u hayso Itoobiya iyo Djibouti ay u hayso Itoobiya liisan fahmin karaa waxaad oran kartaa dikad baan ka kirayna waxay ka soo degistaan kastoo hayn dikada kaliya ee geeska ku taala laakiin waxaad sheegtaa Djibouti ka dawlad ahaan Somaliland danta ay ku qabtay bad miyaad u ilaalisaa bari miyaad u ilaalisaa wadan miyaad u xakuntaa dad ka soo qaxo camp qaxooti aad u samaysay miyay jiraan maxaa la dhahdaay hay'ado samafal oo aad leedahay oo Djibouti ka hawlgala oo dad wax siiyay jiraan markaad leedahay wuxuu waa bilateral oo laba dhinac weeyaan laba gees weeyaan markaad leedahay noo macne indergaradka aan shalay ka hadlayay beenta u adeegsada istiraatiijiyad cilmiyaysan u adeegsada waxa iyagana barbarkiisa jooga abwaanada iyo kuwa saxafiyiinta sheegta oo iyaguna inta iska soo qaataan erayo suuqa galay doonaya inay ku cabiraan xaaladda maanta taagan Itoobiya laftigeedu way ka maarantaa Somaliland laakiin Somaliland bana ka maarmay Itoobiya Djibouti taas way runta ka zinaysanaysiin bal heesihii uu iskaga noqdo wax kale oo dhan ma garanayna